الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي سديدات هي كتاب كني الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمه الله ولي waxaan ku jirnaa qaybtii macaasida iyo raadka xun ee qofka ku reebayso macsiyadu markay badato waxaa la daabacaa oo la xiraa oo la qufulaa qalbiga qofka macsiyeysanaya daabaca waad garan kartaan oo baqshadaha ama envelope-ka markii warqadda la geliyo waa kan dusha khatmi looga dhufto khatmigaas iyo qof furi kara qofkii u socoto unbaa warqadaa furta marka sidaas oo kale tusaale ahaan yaa loo xiraa qofka qalbigiisa wuu xidhmayaa khayrku marka geli maayo waxaa la xidhayaa qalbigiisii wuxuu ka mid noqonayaa min alghaafiliin dadka halmaanku ku dhacay ee khafladu ku dhacday buu qofkaasi ka mid noqon markay dembigiisu bato dadkii salafka qaarkood baa waxay odhan jireen aayaddan tafsiirkeeda kallaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun yacni qalbiga dadkaas raan baa ku dhashay sababta wixii ay kasbadeen oo dunuubtoodii darteeda buu raanku ugu dhashay raanku waa maxay daamur iyo baa la odhan jiray laamida waxyaabadeeda aad aragteen waxay ku fasireen dadkii salafka waa dembi bacda dembi addanbu bacda addanb qofku dembi buu samayn haddana mid kaluu samayn haddana mid kaluu samayn marka qalbigiisii baa marka u dambeysa xidhmaya ayib wuxuu ku fasiray xasan albasri addanbu cala danbi xataa yucmiya alqalb waa dembi la kor saaray ilaa qalbigiiba uu damo qalbigu nuur buu lahaa basiiruu lahaa soo maha indhahan sida basar baa la yidhaahdaa qalbigana basiiruu qofku wax ku arkaa walidaalika dadka indhoolayaasha weydin kara qur-aanka isagoo indhoola bay xifdinayaan oo cilmigii ka jawaabayaan oo culimo badan ay wada maaragtay indhoolayaal ahayn oo asxaabu rasuulillah in badan oo kamid a ay waagi dambe wada indhala aayeen laakiin cilmiga looga soo qasti jiray marka basiirada qalbiga qofka hadday u nooshahay indhahan kore wax weyn looma noqday dhahaan taasaa daran marka dembi haddii la kor saaro waxaa xidhmaya qalbigu indhabeelaya qaar kaloo salafka waxay odhan jireen haddii uu bato dadka dunuubtoodii markay badatay dembigoodii iyo macsiyadoodii baa qalbigii la ixaateeyey ixaadadu afarta dhinac ayay dembigii isaga yimid arrintaas laba xadiid baa tusinayay oo rasuulka sal alla alay wasalam xadiid uu sheegayey dembiga markuu qofku uu sameeyo nuqda sawdaa madow yar bay ku noqonaya bar bay ku noqon qalbigaagii qalbigu wuu cad yahay waa nadiif marka bar bay ku noqon madow haddana dembi labaad markaad samayso bar kale noqon dembigii saddexaad bar kale bar shanaad lixaad toddobaad sideed ilaa marka u dambeysa qalbigii oo dhan uu mugdi noqdo markaasna rasuulku wuxuu aqriyay aayadda kallaa bal raana calaa quluubihim maa kaan marka raankaa ku dhalanayo mugdi buu wixii o dhanna isu bedelaya arrintaas waxaa weeye qalbigu wuu daxalaystaa macsiyada darteed buu la dacalaystaa haddii uu daxalkaasi sii weynaadana raan buu isu bedelaa raankaasi oo daamurkan iyo mugdigan aan sheegayna laamidii oo kale ahayd markuu kaasi isu sii bedelana marka dambe waa la daabacayo quful baa la saarayaa khatmi baa ku dhacaya khatama allahu calaa quluubihim waa sida gaaladii qalbigoodii baa markaa la xidhayaa qofkii khishaawa ayaa daboolaya oo ilaahay kii qur-aanka uu ku sheegay ayib intaas oo dhan markay dhacdo qofkii basiiradii iyo araggii baa laga qaadayaa waxaana xaggii qalbigii sare baa hoos maraya wuu foorarsanayaa xumaan ayuuna arkayaa cadowgiisa ayaana hogaaminaya ilaa meel xun uu hogaamiyo arrintaasoo atii xadiidkii kale imaamu muslim soo saaray iyadana ay tusayso xadiidkii dheeraa تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا فأي قلب أنكرها يعني قلوبته وحا لو بندقا فتنتا أيا قلبك لو بندقي واركا قلوبتي لابا نقون مد فتنتا عبه قلبه واركا فتنتا ولا شك لكن منا وعبيا وكدرقيا marka qalbigii markuu ka dhargo
ومثال وحلو مثال كرا سيدا حديث كوتوسايو سيدا مثلا جودري بيا لغا بوخيو oo kale marka sidaas oo kale uu noqonayaa markaas wuxuu noqonayaa mid hoos u foorar uu noqonayaa mid wuxuu noqonayaa laa yacrifu macruufan walaa yunkiru munkaran xumaanna ma garanayo xumaanna ma diidayo wanaagna ma garanayo sidaas isu bedelaya ama kii diida oo xumaantaa diida ay qalbi abyad ah ayuu noqonoo laa taduruhu lfitanu maadaamat isamaawaatu walardu buu rasuulka sal alla alay wasalam wax fitanayna dhihi mayso kaa cad buu noqonayaa ilaahay subxaanahu watacaala qalbi nadiifa الله ينو أرزاقه إلهينا سبحانه وتعالى حمانتين قبت باديو جزاكم الله خير وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته